kormeerkan wasiirka wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku mareeyay mashaariicda horumarineed ee laga hirgeliyay deegaanada hoos yimaada degmada Faraweyne ee mashruuca horumarinta ee Soomaaliland ee loo yaqaano SDF ayaa waxa kormeerkiisaasi ku wehelinayay gudoomiyaha degmada Faraweyne waxaana ay soo kormeereen dooxa Daboola oo laga hirgeliyay biyo xidheeno oo uu soo dhamaaday wajigii koobaad isla markaana loo gudbay wajigii labaad ee biyo xidheenada laga hirgelinayo dooxaasi Daboola iyadoo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku nool deegaankaasi sidoo kale waxay kormeer ku soo mareen mashaariic kala duwan oo ka mid ahaayeen baraagado laga hirgeliyay deegaanka Goryagol oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku nool deegaankaasi deegaanka Aburiin ayaa isna waxa ka socda mashaariicda horumarineed ee sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland ee laga hirgelinayo taasi oo ay ka mid ahaayeen reeg biyood laga hirgeliyay deegaankaasi Aburiin ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa socdaalkiisa ku soo afmeeray jaamacadda beeraha ee ku taala deegaankaasi Aburiin oo iyaduna ay ka socdaan dhismayaal cusub oo loogu soo kordhiyay jaamacaddaasi iyadoo loogu talagalay horumarinta dhinaca waxbarasho ee jaamacaddaasi gudoomiyaha degmada Faraweyne Faysal Maxamed Jaamac Faysal Dheere ayaa wasiirka halkaasi uga warbixiyay qaabka ay u qabsoomeen mashaariicdaasi ay soo mareen iyo horumarka ballaaran ee ka socda degmada Faraweyne mashaariicda ay ka wada wasaaradda beeraha oo kaashanaysa hay'adda la yiraahdo SDF inay mashruuc dhinaca biyaha haday tahay baraagaha oo dib loo hagaajinayo haday tahay ballayadaba uu wasiirku maanta noogu kormeeraya sida shaqada u socoto iyo sida wax qabadka muuqda looga wado meesha waa mid aan ugu mahadnaqayno waxaan leenahay waa guulaha uu soo kordhiyay xusbiga kulmiye madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda ka tirsan ee xukuumadda wax qabadka runtii oo bari iyo galbeed aad wax uga qabatay wasiirka wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Awdaahir Ibrahim oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku hawlan tahay dardargelinta hawlaha shaqo ee u hayso qaranka socodka iyagu maanta wuxuu ahaa in mashaariicda ka socota biyo shubka dooxada Waaheen oo aad qayb ka tihiin inaanu soo marno oo aanu soo eegno intaa waxa noo raacay cabashadiina in dooxii Daboola uu jeexmay taasoo mustaqbalka biyihiisa saameyn doonta marka jildilaaca ama jeexa ku soo kordhay dooxadii aad biyaha ka helayseen insha Allah ilaahay ha nala qabtee aad baan ugu dadaalaynaa intaan roobka guugu iman inaanu dooxada wax ka qabanno si biyaha loogu intifaaco idinkana waxaan idinku boorinaynaa xoolaha iyo dadka idinku soo guuray muwaadiniinteennii ee abaartu ay sanadkan ku habsatay sida fiican kolka hore ugu soo dhaweyseen inaad halkaa ka sii wadaan mashaariicda kala duwan ee laga hirgeliyay degmada Faraweyne ayaa iyagu qayb ka ah horumarinta ka socda degmadaasi Xamse Qurbaani telefishinka qaranka Soomaaliland degmada Faraweyne